waa maxay calmaaniyadda? Calmaaniyadda waa aragti aaminsan in diinta aad loo fogeeyo ama in diinta aysan wax lug ah ku yeelan arrimaha siyaasadda iyo arrimaha waxbarashada. Waa aragti sheegaysa in laba loo kala saaro hay'adaha diimaha iyo kuwa xukuumadda. Calmaaniyaddu waxay dhiirigelinaysaa in qofka isagoonan aaminsanayn wax diin ah uu ka shaqeeyo xarumaha caafimaadka, kuwa waxbarashada iyo xafiisyada dowladda. haddaba sidee aragtidan calmaaniyadda ku timid? tiirarka xadaaradda iyo horumarka waddamada reer galbeedka markaa si dhab ah u eegto waxay ku taagan yihiin oo saldhig u ah diinta masiixiga. kiniisadaha oo wax walba xukuma oo awoodda oo dhan ay gacanta ugu jirtay baadiriyiinta ayaa aad looga hor yimid lagana soo horjeestay xukunkii kiniisadaha. baadiriyaasha iyo aqoon-yahanada waxaa ka dhex dilaacay loolan socday muddo qarniyo ah. kacaankii warshadaha oo ka hana qaaday Yurubta galbeed sannadihii 1760kii ilaa iyo 1860kii kadib waxaa isbedelay oo guulaystay fikraddii aqoon-yahanada. loolan adag kadib waxaa la isku afgartay in la kala saaro diinta iyo maamulka oo kiniisadda ay ku ekaato oo keliya arrimaha diinta, maamulkana ay daadihiyaan aqoon-yahanada loo igmaday. heshiiskaasi wixii ka dambeeyey waxaa hana qaaday nidaamka calmaaniyadda oo loo yaqaan secularism, middaasi oo ku dhisan qof kasta inuu si xor ah oo xakamo la'aan u fikiro, diintana uu ka fogaado una dhaqmo xishood la'aan sida xoolaha oo kale, naftana si xorriyad ah looga haqabtiro wax kasta oo ay jamato ama ay jeclaato. free life, free speech. hanaqaadkaasi nidaamka calmaaniyadda waxaa hareero socday diin la'aan ku baahday shucuubtii hore ee rumaysnaa diinta masiixiyadda. markaad si dhab ah u eegto nidaamka calmaaniyadda, walow dadka laga fogeeyey barashada iyo ku dhaqanka diinta masiixiga, haddana waxaa jira oo weli soo taagan dad rumaysan jiritaanka alle oo la barxay, middaas oo loo yaqaano Trinity. dadkaas oo aanan wax aqoon u lahayn wax ay ku cibaadaystaan iyo sida ay alle u caabudaan toonaba. nidaamkii calmaaniyadda markii uu si hufan u hirgelay laguna tilaabsaday horumarkii kacaanka warshadaha, bulshada reer galbeedka waa la dhalan rogay oo waxaa laga dhigay xoolo sidii la doono loo maamulo. waxaa laga dhaadhiciyay diintu inay tahay dib u dhac aan la jaan qaadi karin horumarka ilbaxnimada sabanka cusub. intaasi kadib diintii masiixiga isbeddel weyn ayaa lagu sameeyey oo waxaa la soo saaray kutub cusub oo lagu beddelay kitaabkii asalka ahaa, midkaasi oo loogu magacdaray New Testament. waxaa la jideeyey in halkii qarniba isbeddel la saan qaadi kara waayaha dunida in lagu sameeyo diinta iyo dabeecadda bulshada. kiniisadihii waxaa hoggaan looga dhigay shaydaan muuqaal bini'aadam leh, midkaasi oo darajo ahaan lagu sharfay in lagu magacaabo baadari. dembiilaha cafiska doonaya waa inuu soo maraa baadarigaasi jooga kiniisadda, maadaama baadariga loo aqoonsan yahay wakiil diimeed uu alla doortay. qarni kasta sidii tiir diinta ka mid ah loo masaxayey, diintii masiixiga waxay ku dambaysay sahan lagu tirakoobay gabadfalladii ay la kulmeen ardayda dhigata dugsiyada kiniisadaha ee loo tababaro inay noqdaan xerta baadariga weyn. 80% iyaga oo tiiraanyaysan ay waxay hoosta ka xariiqeen in baadariyaashu ay farxumeeyeen yaraantoodii. diin la'aan darteed sidii xoolaha ayaa loo dhaqmay, waxaa laga tegay guurkii oo waxaa lagu beddelay isla noolaasho oo la macno ah dhilaysi ka mid noqday nolol maalmeedka. diin la'aantii baahda kadib waddamada reer galbeedka waxay dib u soo nooleeyeen dhaqanxumadii lagu halaagay qoomkii nebi luud calayhi salaam. xaaladdii meel xun ayay ku biyo shubatay oo le sannado badan socday kadib hadda waxaa la oggolaaday baadari qoomuluud ah inuu kiniisadda madax ka noqdo. nin dabadiisa xifdin waaye ayaa diin madax looga dhigay. waa mucjiso maanka fiyow diidan yahay. diintii masiixiyadda foolxumadaasi ayay ku qaatumaysatay, sidaasi oo kale heerkaasi mid ka sii xun ayaa la gaarsiiyey diinta yuhuudda oo maanta magac ahaan loogu danaysto. hanaqaadkii nidaamka calmaaniyadda kadib, goortii lagu guulaystay tirtirista diinta masiixiga iyo diinta yuhuudda, waxaa loo guntaday sidii cagta loo marin lahaa diinta islaamka ama looga dhigi lahaa mid magac uun ka nool. marka hore waxay diinta islaamka ugu soo horjeedaan caqiide ahaan oo ma ahan diin ay rumaysan yihiin. waxay kaloo aad uga cabsi qabaan maadaama diinta islaamka ay tahay mid xaq ah oo aanan marnaba isbeddel ku dhicin waxyigii ka soo degay xagga alle. marka labaad waxay cabsi weyn ka qabaan inay ku soo labakacleeyaan baadiriyaashii sida dhabta ah u rumaysnaa diinta masiixiyadda, kuwaasi oo haddaba riman inay mar uun arkaan kiniisad awood leh oo xukunka dib u qabsata
inkastoo la gaarsiiyey meel aysan ka soo waaqsan karin. waddankii ugu horeeyey muslim ahaa ee fikradda calmaaniyadda si sandulo ah dadkiisa looga dhaadhiciyo wuxuu ahaa waddanka Turkiga. gaalo waxay ku guulaysteen in la afgambiyo xukunkii khilaafadda muslimiinta. Turkiga oo ahaa waqti dheer hoggaankii muslimiinta waxaa laga dhaadhiciyey in islaamku uu dib u dhac u keenay, waxaana loogu gacan haatiyey inay qaataan nidaamka calmaaniyadda. waxaa dadkii lagu qasbay inay ka fogaadaan astaan waliba oo muujinaysa islaamnimada sida xijaabka, garka iyo barashada carabiga. Soomaalida laf ahaanteeda markaad si dhab ah u eegto waxay nidaamka calmaaniyadda qaateen xilligii dowladnimada ay ku dhawaaqeen oo ahayd 1960kii. baarlamaankii xilligaasi la unkumay oo ka koobnaa 123 xildhibaan. 2 qof oo ka mid ma ahee inta kale waxay u codeeyeen in dalka lagu dhaqo dimuqraadiyadda calmaaniyadda ku dhisan, waxaana wadaadadii dhagta loogu shubay in xertooda iyo weliimadooda uun ay ku ekaadaan, wax dowladnimo ah aysan soo damaacin. diin ma ku dhaqmanaynaa? anigu I will say no. It's better dad inaga muslimsan ma jiro. haddii aadan Cadiye Cabdirashiid iyo dowladoodii aad aragto dad muslimiin oo cidna fasax kaga qaadanayn bay ahayn muslimiinta. They were not trying to prove inay muslimiin yihiin. dad muslimiin sharaf leh bay ahaayeen, sidaana dalkooga way ku wadeen. kaasi waa aqoon-yahan Faysal Cabdi Faarax oo aaminsan calmaaniyadda, laakiin aan dib u xasuusiyo taariikhda. Vincenzo Falanardi wuxuu ahaa wakiilkii gumaysiga Talyaaniga ee dalka soo galay. wuxuu 24kii bishii 10aad 1893 soo saaray xeer loo dejiyey in lagu maamulo maxmiyadii koonfurta Soomaaliya. xeerkaasi 2 qodob ka mid ah waxay sheegayaan in dalka iyo dadkaba lagu dhaqo shariicada Islaamka iyo in dhirta ku teedsan webiyada jiinkooda aan la jari karin. haddaba muhiimaddu waxay tahay oo aqoon-yahanka in la weydiiyo mudan xeerkii 1893 uu soo saaray gumaystihii Talyaaniga iyo xeerkii 60ka dalka loo sameeyey keebaa dalka iyo dadka u roonaa. haddiiba nin gaal ah oo gumaystihii uu ka fogaaday in dadka diintooda waxaan ahayn lagu dhaqo, maxay Soomaalida dimuqraadiyadda ku doorteen? muxuuse dalkan u degi la'yahay? horaa waxaa loo yidhi aayaddii alif ku wareerta albaqra kuma hagaagto. qoloocii galay dhismihii qarannimada Soomaaliya wuxuu galay qoys waliba, wuxuuse aakhirkii inoo horseeday halaagii dhacay oo qof waliba bari iyo bugux ka tuurtay. marka diinta ma qabo aniga waddanka in lagu xukumo, laakiin waxaan qabaa constitutionka aan qaadanayn inuusan diinta ku xadgudbin lagu beesgareeyo. niman naga caqli badan Maraykan ayaa kala sooceen diinta iyo stateka. there's a reason ay u kala sooceen. it's not joke ma aha. waa naga caqli badan yihiin, waa naga aqoon badan yihiin, waa naga waaya aragsan yihiin. waxay dhaheen baashan ha la kala sooco. aniga marka waxaan qabaa marka in la kala sooco